Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Sheekadeenna maanta waxa ay ku saabsan tahay ninkani waa nin habeenkii iska dhiga libaax ama qori ismaaris wixii la odhan jiray. Ninkani wuxuu habeenkii noqdaa libaax, kadibna wuxuu cunaa carruurta yaryar ee xaafadaha. Sidan ayuu habeenkii isku beddelaa oo wuxuu noqdaa ninkan libaaxa ah. Markuu soo noqdana qurigii ayuu ismariyaa, wuxuuna noqdaa nin caadi ah. Markaas ayuu dadka la shaqaystaa maalinkii oo uu iskala joogaa isagoo is og carruurta maqan ee la raadinayo inuu isagu cunay. Haddaba sheekadeennu halkan ayay ka bilaabmaysaa. Ninkan iyo gabadhani waa laba xaasa, waxayna dhaleen wiilkan yari oo ah wiilkoodii yaraa. Wiilkan yar ayay barbaarsadeen. Wiilkan yari wuxuu noqon doonaa ka ugu horreeya ee uu cuni doono ninkan libaaxa iska dhigay, maadaama oo ay jaar yihiin oo ay iyaguna ayna garanaynin labadan waalid war uma hayaan wax carruurta cunana ma aysan ogeyn. Sheekadani runtii waa sheeko cajiiba. Haddaba ninkii waa kan isagoo caadiya maalinkoo dhanna sidani weeyaan, laakiin habeenkii markay gaadho waa uu isbeddelaa oo waxuu iska dhigaa libaax. Markaasuu ciyaalka yar meelaha ka soo cunaa xaafadaha. Waa kan hadda waxa uu iska dhigay libaax, waxaana la joogaa goor habeennimo ah. Wuxuu doonayaa inuu soo cuno carruur ama ciddii uu awoodi karayo inuu cuno. Halkan ayuu ku sugayaa ilaa inta uu dayaxu dhacayo ama dhulku aad madow u noqonayo oo ay xilli dambe noqonayso. Libaaxani waxa uu cunayaa carruurta, kabacdina gurigan ayuu ku soo noqonayaa oo wuxuu iska dhigayaa ninkii caadiga ahaa. Subaxiina toos ayuu u shaqo tagayaa. Dadkii hore waxay u yaqaaneen qori ismaris. Libaaxani hadda wuxuu u diyaar garoobayaa oo sugi kari laayahay inta uu dayaxu ka dhacayo dhulkuna uu madow noqonayo si uu carruur u soo cuno. Wiilkii yar ayaynu arki doonaa bal qisada ka raacda ninkani inuu cuno iyo inuu dhaafo. Sheekadeenna ayaana ku saabsan dilkiisa iyo inta carruur uu cuni doono. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe noo saar kanaalka oo nagu soo biir. Hadda ninkii waa kana wuxuu doonayaa haddaba inuu tago guryihii wax ka cuni lahaa ama meeshii uu ka soo cuni lahaa carruurta. Hadda waxa uu ku sii socdaa oo uu ku dhowaanayaa guryaha carruurta si uu u soo ogaado bal carruurta bannaanada joogta ama inta carruur ee dayacan ee uu soo cuni karo. Hadda waa uu diyaar garoobayaa, wuxuuna doonayaa inuu ku sii dhowaado maadaama guryaha ka yar durugsan yahay oo gurigiisa uu ku yaallo meel bannaana. Hadda wuxuu doonayaa isagu inuu sii tago guryihii bini'aadanka oo bal uu sii eego carruur meelahaasi joogta oo ah xilliga fiidka ama xilliyada kale. Hadda waa habeen, waa kana toos ayuuna u soo baxay, wuxuuna ku sii socdaa dhinacan iyo guri uu fursad u raadinayo oo uu isleeyahay bal gurigaasi kala soo bax carruur ama ciddii aad cuni karaysid. Ma oga cidduu la kulmi doono, laakiin wuxuu soo galay xaafad guri ayuuna gudaha u soo galay. Hadda gurigan gudihiisa socod ayuu iskaga dhex socdaa maadaama uu libaax yahay oo aanu baqayninba. Wuxuuna raadinayaa carruur yaryar oo uu cuno. Hadda waxaan arkaynaa inuu gudaha guriga u sii galay. Wiilkii yaraa weli ma uusan seexan, waa kan hooyadii ayuu la joogaa, waana xilli dambe oo xilligan waa xilliga carruurtu seexanaysay. Hadda wiilkan yari wuxuu noqon doonaa mid seexanaya oo tegi doona qolkiisii hurdada. Sidaynu arkayno wiilkii yaraa wuu seexday, wuxuuna seexday qolkiisii hurdada. Libaaxina waxa uu ku soo jiraa. Libaaxuna wuxuu joogaa meel aad ugu dhow oo aan saa uga fogeyn. Libaaxi wuxuu soo istaagay meel ka mid ah qolkii ka yari joogay, kadibna aad ayuu u farxay isagoo aamusan. Wuxuuna leeyahay caawa fursad ayaad heshay, ilmahan yarna waad qaadanaysaa oo waad cunaysaa. Wuxuuna soo cunay carruur fara badan. Hadda wuxuu isku diyaarinayaa siduu ilmaha yar ula baxsan lahaa ama ula carari lahaa. Libaaxan waa mid aad u xoog weyn, aadna u quwad weyn, waayo waa qof bini'aadan ah iyo libaax isku jira. Hadda wuxuu doonayaa inuu ilmaha yar qaato oo saa ku cuno. Carruur badan ayuu cunay oo laakiin magaaladan ma ahee magaalo kale ayuu ka yimid libaaxan ninka ahi. Hadda wiilkii yara ayuu soo qaadayaa si bilaa shanqara ayuu doonayaa inuu wiilka yar u cuno ama uu u qaato. Wiilka yar wuu iska hurdaa, warna uma hayo. Markiiba wiilkii yara gaf ayuu soo siiyey, waayo gacmaha bini'aadanka ayaa buu leeyahay, waanu soo qaatay wiilkii yara wakaa la sii cararaya. Wiilkii yaraa saas ayuu kula anbabaxay
oo wuxuu la sii socdaa kayntii. Saas ayuu wiilkii yaraa ku qaatay libaaxani. Libaaxii waxa uu cunay wiilkii yaraa oo sidaasi ku cunay. Hadda wuxuu iska hor fadhiyay gurigiisii, waana xilli dambe. Wuxuuna ka fikirayaa waxaa doonata carruur kale mise waaga ayaa ku baryi doona, waayo wuxuu aad u cunaa waa carruurta. Gabadhii haddaba waxay ogaatay wiilkeedii yaraa oo maqan. Aad ayayna u naxday, aad ayayna u qaylinaysaa. Waxa ayna u qaylinaysaa waa wiilkii yaraa oon meeshaba joogin, oo wax qaatayna ayna garanaynin, maadaama kolka hore ku hubtay guriga inuu joogo wiilka yar oo in yar ka hor uu seexday wiilku. Hadda gabadhii aad ayay u ooyaysaa, wayna qaylinaysaa maadaama wiilkeedii yaraaye curdeed uu ahaa. Waxay garaacday ninkeedii, waxayna ku tidhi, soo carar, wiilkii yaraa ma joogo, wax qaatayna ma garanaynee, degdeg noo soo gaadh. Ninkeedii oo ordaya ayaa u yimid, wuxuuna ku yidhi, maxaa kugu dhacay? Oo wiilkii yaraa xaguu maray? Yaase qaatay? Waxay ku tidhi, ma garan karo, meesha maba yaallo gebigiisina, xataa dharkiisa meesha lagagama tegin, gebigiisa waa la qaatay ilmihii yaraa, meel uu ka dhacayna ma garan karo. Kadib ninkii waa u yaabay, afariiran ayaana ku dhacay, wuuna u qaadan laayahay ilmaha yar cidda qaadatay iyo waxa qaatay waxay yihiin. Labadoodiiba hadda waa ay murugaysan yihiin, aad bayna gabadhu u ooyaysaa. Waxay ka ooyaysaa ilmaha yar ee curadka u ahaa, kaasoo ay caawa weyday. Kadib ninkii waxa uu tagay suuqa aroortii, wuxuuna ogeysiinayaa ama uu baahinayaa oo uu raadinayaa waa wiilkiisii. Wuxuu yidhi, wiil noocaas iga maqan, wiil yar oo aan dhalay weeye, waana curadkaygii. Ciddii aragtaa si naxariis leh ayuu keento. Magaaladii ayuu ka dhex raadinayaa, wuxuuna isleeyahay wiilka yar magaalada dhexdeeda ayuu jooga, ama wuu lumay ama waa lagaa xaday. Laakiin isma laha, libaax ayaa dhulka jooga oo cunaya carruurta. Ninkii waxa uu makarafoon la dhex maray magaaladii, wuxuuna baafinayaa wiilkiisii yaraa oo uu raadinayaa. Waa wiil xalay toolaba uu cunay libaaxu. Hadda libaaxu maalinimada wuxuu iska dhigayaa nin caadi ah, oo xataa waxaa laga yaabaa inuu soo hormaro. Gabadhii iyo ninkii guriga ay ku soo noqdeen iyaga oo quus taagan. Gabadhiina aad ayay u murugaysan tahay, ninkiina halkan kula gabadh canaanaya, marna uu murugoonaya, uu leeyahay ilmihiina yar waxa qaatay muxuu yahay. Meeshu waa magaalo, reedna lama arki karo oo waa dhul dhisan. Gabadhii aad ayay u ooyaysaa, manay seexanin weli, ilaa xalay waa ay soo jeedaa sida ay wiilkeeda yar u weyday, aabihiina sidaasi la mida. Haddaba maalin kale oo maalmaha ka mid ahayd, gabadhan waa gabadh iyaduna dhashay carruur, weliba inan yar ayaa iyadu dhashay. Hadda cunno ayay samaynaysaa, laakiin qisada halkan ku jirta waxa weeye, libaaxu hadda wuxuu mar labaad u soo noqonayaa gabadha yar ee ay dhashay gabadhani, oo uu qaadanaya. Gabadha ay dhashay gabadha yari waa gabadhan. Ilmahan yar ee halkan ku ciyaaraya waxaa dhashay hooyadii imika aynu arkaynay ee cuntada u samaynaysay. Carruurta asal san ayay iskaga ciyaaraan ilaa inta ay ka seexanayaan ama ay ka luloonayaan. Markay seexdaanna ma dareemaan haddii la qaadqaado amaba la sido. Ilmahan yar aabihiina waa kana, ama gabadhan yar aabaheed waa kan. Hadda ayuu albaabka ka soo galay oo waxa uu ku soo hubsaday qaybtii hurdada. Gabadhii yareed waxa uu soo seexiyay qaybtii guriga ee hurdada ee ay seexan jirtay gabadha yari. Sidaas ay labadii waalidna ku jiibsadeen. Ninkan wuu soo ambabaxay, waddadiisii ayuuna dib u soo maray, maadaama ilmihii yaraa uu xalay cunay, caawana wuxuu doonayaa inuu ilmo yaroo kale uu soo cuno. Haddaba gabadhan yar ayuu doonayaa inuu soo cuno, laakiin qiso kale ayaa ka raaci doonta libaaxani. Waa kan libaaxii, qolkii wuu u soo galay gabadhii yar si degdega, kadibna wuu u dul yimiday. Sidii si lamida gabadhii yar gaf ayuu ka soo siiyey, waana uu soo qaatay. Waddada ayuuna la maray oo ilmihii yaraa wakaasi sita. Kadib labadii waalid markay arkeen ilmihii yar oo meesha joogin, aad ayay u ooyeen labadoodiiba, qaylana waa ay isku dareen. Ilmihii yaraana waxay arkayaan in aanu aagga joogin oo gebigiisaba la qaatay. Waa gabadhii yarayda labaade, waxaana qaatay waa libaaxani oo carruurtii aad u dhameeyey. Kadib ninkii orod ayuu isa soo daayay, waranna wuu soo qaatay. Waxaanuu ka soo baxay qaybtii waddadii dheerayd, xaggii suuqa uma soo noqon, laakiin xaggii tuulada ayuu u soo kacay, isagoo aan waxba war ka hayn, laakiin nasiibinaya oo aad u ordaya, maadaama in yar ka hor ilmaha yar la qaatay. Ninkii wuxuu soo ordaba wuxuu yimiday tuuladii, wuxuuna la kulmay gabadhiisii yarayd oo libaaxii ag taagan yahay oo uuna weli cunin ayuu arkay. Kadibna waa uu yaabay, madaxa ayuu qabsaday, wuxuu kala garan waayey qofkan iyo libaaxan isku jira iyo ilmihiisii yaraa oo ka ag ooyaya. Kadibna aad ayuu u xanaaqay, wuxuuna gartay inuu ninkani quris maris yahay. Ilmihii yaraa meesha uu ka cararay oo xaggii hooyadii ayuu u cararay.
ninkii iyo libaaxina way is hor taagan yihiin. Kadib libaaxii orod ayuu isa sii daayay, wuxuuna doonayaa inuu gurigii ka gaadho oo qorigii ismariyo, kadibna isagoo bini'aadana uu bannaanka yimaado oon cidna fahmayn. Kadib ninkii waa uu daba cararaya kamana hadhayo libaaxan ilaa uu dilo, waayo wuxuu doonayaa libaaxan in uu dilo maadaamuu yahay ka carruurta marinaya, isagoo xog hore u hayay oo jaarkiisa laga cunay ilmo yar. Ninkii sidaas ayuu ku eryanayaa libaaxii ilaa inta uu ka gaadhayo kama hadhayo. Gabadhii uu isagu qabay iyadna waa tan, way ka soo daba carartay xanaaqii inta ilmihii yaraa kaga timid gurigii iyo dadkii ayay ka soo daba carartay oo waa laga soo daba qayliyay libaaxan ninka ah. Tuuladiina way wada ogaatay, hadda waa ka sii daba cararayaan. Libaaxii aad ayuu u cararayaa halkan, xawaare ayuuna ku jiraa oo cid ka hor timaada xataa ma arkayo. Laakiin halkan waxaa usoo geli doonta gabadhii hore ee uu ilmaha ka cunay sikadiisa. Waa tan gabadhii. Libaaxii ayaa si orod uga hor yimid, kadibna dhuunta ayay ka gelisay warankii. Libaaxina dhulka ayay ugu tuurtay, raggiina way ku soo gaadheen. Gabadhan oo cadho hore u qabtay oo ahaa gabadhii uu ka cunay ilmaha yar ee koowaad ayaa ah gabadhii dishay libaaxan. Hadda iyadoo cadhoonaysa oo ooynaysa ayay libaaxiina halkan sakaraadaya. Labadii rag ahaana way ku soo gaadheen. Halkan ayuu libaaxii lagu dilay oo uu noqday mid meyda oo lagaga raysto cunistiisii iyo carruurtii la waayayay. Gabadhan ayaana dishay. Maanta kadib tuulada waxaa loo sheegaya inay foojignaato. Haddaba haddii aad kanaalka ku cusub tahay oo aadan hore ugu jiri jirin, fadlan kanaalka subscribe noo saar, like tana ha ilaabin. Insha Allah muuqaaladan iyo muuqaalo kale oo ka badan ayaan kuu soo gudbin doonaa.